dhammaan marti sharafta qiimaha badan xubnaha golaha wasiirada madaxda guud ahaan hay'adaha kala duwan ee dawladda golayaasha aqoonyahanka kala duwan iyo marti sharafta kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii kuma dheeraanayo ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadle inoo igma inaynu qabsano shirkeennii labaad ee aynu ku falanqeynaynay horumarinta dhaqaalaha Jamhuuriyadda Somaliland khubaro badan iyo mas'uuliyiin badan baa ka hadlay marka anigu xoogaa waxaan ku koobnaanuun doorka ay ku leeyihiin bangiyadu horumarka maadaama dhaqaalaha si guud looga soo warramay ugu horreyn waxa weeye sidaa la sheegay dhaqaalaheenu de koboc sanadba sanadka ka dambeeya horumar baynu higsanaynaa waana dhaqaale runtii sugan oo marka la eego qorshayaasha qaranka iyo wax soo saarka marka la isku eego waa fiican iyo meel fiican buu marayaa laakiin higsigeennii weli uma dhowin baananka guud ahaan oo runtii de baanka dhexana uu yahay baanka maamula dejinta qorshayaasha qaran iyo horumarka iyo ka qayb qaadashada developmentka qoloba role bay leedahay baanka dhexe mas'uuliyadiisu waxa weeye ilaalinta iyo kobcinta dhaqaalaha gaar ahaana qiimaha shilinka Somaliland iyo sugidda dejinta wixii xeerara ee looga baahan yahay sectorka baananka hay'adaha maaliyadeed guud ahaan sida laga soo dhawaajiyay runtii Somaliland dhaqaalaheeda gaar ahaan lacagteena waxaad ku garanaysaa in dhaqaalaheenu kobcayay lacagteenu way sugnayd oo 5 sano ee la soo dhaafay waxa ahayd runtii lacagta ugu deganaanshaha badan marka loo eego geeska taasoo ay runtii halbeeg u ahayd bays u ahayd ba siyaasadda dhaqaale aynu qaran ahaan aynu ku soconno isbedelada imanaya dartood laga hadlay dhaqaale dhaqaale ayaa mar kasta dhaqaalaha saameeya waa laga yaabaa iminka bilahan u dambeeyay in shilinkeena ama inflationka guud ahaan oo intii hore runtii hoos uga dhacay xagga qiimaha taasoo sababtana ay leedahay duruufihii laga hadlayay aynu iminka ku jirno lana doonayo shirkan iyo madashan waxyaabihii lagaga bixi lahaa caqabadaha jira iminka dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka ah in laga soo saaro lagana doodo oo runtii marka la jaangooyo istiraatiijiyadii hore loogu socon lahaa marka loo eego runtii 5 sano jaangooyn siyaasadda guud ee xukuumadda xagga price stabilization-ka waxa laga yaabaa iminka inuu 4% uu hoos uga dhacay inflation-kuna 10.4 uu marayo taa macnaheedu waxa weeye waxa yaraaday dal aan wax soo saar lahayn iminka Dr. Ismaan sidoo inoo sheegay dhaqaalaha waxa base u ah lacagta waxa aasaas u ah dal waliba wuxuu soo saaro maaha wuxuu la soo dego wuxuu soo saaro haddii dhaqaalaheena iyo wax soo saarkeenu kobco lacagteenu qiimo yeelanaysa waana waxyaabaha priority-ga loo siiyay shirkan inay ku wareegto wax soo saarka gudaha baanaku haddaan u noqdo waxa weeye waa deynamada wareejisa dhaqaalaha dhaqaale horumar ma jiray haddaan bangi jirin bangigu wuxuu aasaas u yahay kobaca dhaqaale waayo waa halka laga maalgeliyo mashaariicdan waaweyn ee iminka laga hadlayay aynu u baahannahay runtii bangiyadeenu iyaga oo runtii aan muddo dheer jirin oo dee laga yaabo 10 sano waxaan ka badnayn inay bangiyadeenu ay iminka jireen haddana doorka ay ku leeyihiin horumarka dhaqaalaha runtii aad iyo aad buu u weyn yahay bangiyadu 2 arrimood baa aasaas u ah oo midna waa kaydka lacagta inay hayaan oo lacagta la dhigto
oo qof walba lacagtiisa ku kaydsado iyagana waxa weeye mas'uuliyadoodu lacagta ay hayaan inay dalka ku maalgeliyaan iyagoo mudnaanta siinaya kolba wixii mudnaan leh haddaan xoogaa sii dul taago kobaca xagga bangiyada waxaynu ka garan karnaa dadka lacagta dhigtaa miyay korayaan oo waxa weeye dadkeenu way adabtigaraynayaan inay bangiyada la macaamulaan mise way yaraanayaan bangiyadu se maxay maalgeliyaan lacag intee leebay dalka geliyaan oo ay ku soo celiyaan si markaa dhaqaalaha wareegiisu uu kordho runtii waxyaabaha inta badan waxa weeye ilaa 240 milyan ayay gaadhayaan runtii lacagaha baananku ay runtii asal deposit ay u hayaan ma badna dadkeena isticmaala percentage marka loo eego bangiyada oo waa waxyaabahaynu inta badan aragno suuqageedii gubanayay waaheen iyo wajaalaba waxa loogu tegay lacago badan oo meheradaha yaala oo dadkeenu weli sidii traditionalka ahayd meheradaha lagu kaydsan jiray lacagaha amba meheradu ha dhigato amba meherado kale iyo dad kaleba ha u dhigtaane lacago badan oo waxa jira laga soo saaray amba inagaga waxyeeloobo inagaga gubtay meelihii iyo businesskii iyo meheradihii gubtay taasi waxay tusaale u tahay inayna weli bangiyada inaynu wax dhiganno ay weli cusub tahay laakiin haddana marka la eego koritaanka waxa weeye runtii aad iyo aad ayay u kobcayaan lacagaha baananku ay maalgeliyaan inkastoo dee sektarada ku maalgeliyaan ay kala duwan tahay ½ bilyan way gaadhayaan runtii sanadkii 2022 daraasadda runtii waaxdayada supervisionka ay usoo gudbiyeen bangiyadu taasoo runtii koritaan badani uu ka muuqdo marka laga reebo sanadkan oo xoogaa duruufaha jira awgood ay challenges badan bangiyadii ku noqotay inay maalgelino badan ay sameeyaan halkaa waxaynu ka qaadanaynaa kobaca bangiyada iyo dhaqaaluhu way isku xidhan yihiin bangiyada ilaa xad waxaa jira oo shaqeeya ilaa 5 bank inkastoo bangi cusub yahay hay-adaha kale maaliyadeed ee runtii dee taageera sida xawaaladaha iyo insurance iyo microfinance iyaguna way soo kobcayaan macnaheedu waxa weeye hay-adaha maaliyadeed kol hadday kobcaan ilaa 50 farac ayay ku leeyihiin magaalooyinka waaweyn bangiyadu waxaa laga yaabaa ATM-yadana inayna yarayn taa macnaheedu waxa weeye access to finance-kii aynu sanadkii hore kaga hadalnay madashan qodobadeeda ay ka mid ahaayeen in loo fududeeyo dadka muwaadiniinta ah inay bangiyadii la macaamilaan macnaheedu waxa weeye in adeegii lagu soo dhaweeyo oo qofku uu heli karo adeegyada bangiyada hadday tahay laamaha cusub ay furanayaan iyo hadday tahay matalan shuruudaha iyo waxyaabaha laga doonayo qofka maalgelinta u baahan challenges badan baa runtii jira xagga regulationska oo kale oo baanka dhexe runtii mas'uuliyadiisa ay tahay bangiyada waanu ka wada shaqaynay wixii caqabado xagga shuruucda ah in la fududeeyo waxaanu iminka dhammaystirnay xeerka xaraashka oo runtii haddii golayaashu ay dedejiyaan oo iminka runtii uu kalfadhigooda dambe uu iman doono xeerkaasi wax badan ka tari doono inuu maalgashiga ay ku dhiiradaan bangiyadu lacag bay hayaan lacagtana inta badan riskigay ka baqayaan lacag ammaano dad u hayaan weeye marka rinteeka iyo soo noqoshadiisa inta badan caqabad noqota marka si taa loo fududeeyo waa in xeerarka jiraan hadhow waxa weeye lacag bixiyihii oo bangigii ah iyo lacag qaatihii xeerarkii u dhaxayn lahaa sidee maalgelintu ay u sii socoto ama u fududaato xeerarkaas waa naga diyaar waxa kaloo diyaara runtii oo baanka dhexe u diyaariyay regulationskii clearing house-ka oo ah bangiyada isku xidhka bangiyada iyo in adeegyada bangiyada macaamiishoodu ay ugu yimaadaan inay meel walba ka qaadan karaan oo bangiyadu iyaga laftigooda dhexdoodu ay isku xidhmaan runtii xeerkaas waa diyaar waa dhaqan galay sida ugu dhaqsaa badan runtii waanu u wada fulinaa bangiyada xeerarka kale ee national paymentka iyo mobile money-ga iyo waxyaabahaasna iminka waa gebagebo waxaan odhan lahaa runtii bangiyadu door weyn bay ku leeyihiin horumarka laakiin waxa weli la tegayaa in loo fududeeyo dadka kala duwan ee maalgelinta doonaya
shuruudaha lagu xidhayana la fududeeyo waxyaabaha dee runtii macaashka bangiyadu saarayaana hoos loo dhigo kulle baanka dhexe iminka wuxuu aasaasay guddida culimada oo runtii noqon doonta maadaama aynu qaadanay islaamic bankinka ama islamic finance guud ahaan oo dee diinteenuna ayna farayso inaynu fududayno oo u fududayno muwaadiniinta inay access gareeyaan iyo macaamiisha kala duwan iyo dee projectyada guud ee heer qarana inagoo ka faa'iideysanayna runtii horumarka laga gaadhay dhinaca islamic finance laga gaadhay iminka iyo tajaarubka ay gaadheen dalalka islaamka iyagoo ku dhaqmaya nidaamkeenu ku dhaqmayno taasoo runtii wax badan fududayn doonta waxyaabaha noo qorshaysan ee aanu doonayno runtii baanka dhexe iyo bangiyada iyo hay-adaha kale khusayso sida maaliyadda iyo qorsheynta iyo wasaaradda awqaaftu in la sameeyo diiwaankii sekada iyo waqafka oo runtii aynu ka faa'iidaysano haddaan kayd lacageed la helin horumarna lama helayo mekanism badan baa jira oo aynu ku samayn karno islamic capital marka lacagtaa la helo lagu maalgelin karo adeegyada kala duwan iyo wadooyinka kala duwan ee shareecadu inoo sheegtay marka runtii waa qorshayaasha aanu soo wadno national development plan-keenuna wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalihiisu dibad inaanu ka imanin innaga inaga yimaado oo uu noqdo waxaynu leenahay oo aynu ku maalgelino dhaqaalahaynu hayno innagoo wadooyinka kala duwan adeegsanayna marka in mustaqbalka insha allah shirkiisa in horumar badan laga gaari doono xagga doodahana runtii qayb bay ka noqon doontaa sidee baynu halkan uga dhaqaaqnaa oo maalgelin inagu adeegsanayna bangiyadeena iyo hay-adaheena kala duwan sidee baynu runtii u dardargelinaa dhaqaalaheena runtii waxaan kusoo gebagabaynayaa caqabado badan way iska jiraan runtii oo dee habdhaqankeena iyo siyaasaddeena guud ahaan iyo environmentkuba uu keensanayo bangiyadu waxay maalgelin ku sameeyaan marka environment la maalgelin karaa uu jiro marka arrimaha laga soo sheekeeyey hadday tahay siyaasadda hadday tahay qabyaaladda hadday tahay matalan oo kale waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha inta badan dee ka hor imanaya bangigu inuu maal gashado sector gaara inuu maal gashado ama guud ahaanba inuu maalgelin furan uu sameeyo marka waxa weeye dee waa waxyaabaha u baahan inaynu shirkanna aynu ka soo saarno weliba sektarada iyo meelaha la xulay ee u baahan maalgelin oo aan halka iminka individualist bangiyadu ay ka bixiyaan maalgelinta inay bangiyadu mashruuc mashaariicda qaran ka mida ay iskugu tagaan oo dabeetana waxa weeye ay wada maalgeliyaan si markaa projectyada waaweyn ee heer qaran ee dhaqaalaheena si guud saameynta ugu leh ay ka wada qayb qaataan riskiguna u yaraado oo aanu institution kaliya ku dhicin wax soo saarka iyo maxsuulka iyo natiijaduna ay u badnaato oo dee saameyn guud dhaqaalaha dalka uu keeno